waxaa ku curtay habeenkan magaalada Madrid Barcelonadii la wada filayay waayadan taasi oo sida muuqataba dib ula wareegi doonta xukunkii kubadda cagta Yurub iyo tan Spain. mar haddii derbigii dunida ee El Clasico ay ku soo dilatay Santiago Bernabeu, Real Madrid oo noqonaysa quwad aanan indhaha laga laaban karin. waxaana la dhihi karaaba Hansi Flick waxa uu soo saaray jiil wada dahabiya oo yaqaana sida loogu raaxaysto banooniga, kuwa oo habeenkan ku guulaystay iyagoo u badan da'yar inay dib u baraan boqoradii kubadda cagta Yurub waxa ay tahay ciyaar. Vini iyo Mbappe haddii ay ahaayeen kuwa lagu ogaa fagax iyo xariiftan kubadeed, habeenkan waa la xeeladaystay oo waxaa helay Kubarsi iyo Inigo Martinez oo markasteetaba kaga soo baxayay garabdhaaf. taageerayaasha Real Madrid xitaa waxay ka gaartay heer ay dhahaan kubad cag oo garabdhaaf la'aan ah ma wada ciyaarna. qaybtii hore waxaa lagu kala tagay barbardhac goola la'aana iyo Kylian Mbappe oo aaladda caawisa garsoorka ee VAR ay ka diiday gool. isku soo laabashada qaybtii labaadna sidii daadkii oo kale ayaa loogu fatahay shabaqa Real, iyadoo daqiiqadii 54 kubad uu bartamaha garoonka ka soo baasay Casedo uu bannaanka dilinta ganaaxa ka tumay Roberto Lewandowski. 2 daqiiqa kadib goolka mar kale loob ka yimid Baldi ayuu madax ku dhirbaaxay mashiinkii goolasha ee reer Poland. waaga ayaana ku caddaadayba xidigaha Real Madrid iyo macallimkooda Carlo Ancelotti. yaaba inta kaga heray oo waxa u saddexeeyay mar la aragga reer Spain ee Lamine Yamal, halka goolka afaraad uu ku soo xiray shabaqa Real Madrid oo marti loo ahaa Rafinha. Real Madrid oo ku hubaysnaydna weerarkii ugu khatarta badnaa dunida waxa ay kari waysayba inay la timaado goolka calanka oo 4 gool iyo waxba waxay guusha ku raacday kooxda Barcelona. habeenkan waa habeen dhinac kasteetaba u cajaa'ib badan. taageerayaasha kooxda ka dhisan magaala madaxda gobolka Catalan halkasta oo ay ka joogaan adduunkan. horyaalka Ingiriiskana waxaa hoggaankiisa si kumeel gaara ula wareegtay Manchester City oo ka warsugaysa waxa ka soo bixi doona kulanka Liverpool ay Arsenal kula dheeli doonto Emirates Stadium. kadib markii kooxda lagu naanayso muwaadiniinta gool iyo waxba ay ku soo dhaaftay kooxda Southampton, waxaana goolka uu ka yimid macallimkii goolasha ee Erling Haaland. waa qulqul bandhigiisa goolasha, waana laacib aanan indhaha laga dadan karin waxa uu galo iyo waxa uu gudo. waad ku mahadsan tahay haddii aad daawanaysa warbixinadan ilaa iyo dhammaadkooda. waxaan ahay Maxamed Cabdirasaaq Tolman.